maanta inaan taagannahay tuulada la yidhaahdo Gooboyn meesha ay isaga daraan badda iyo webigu dhulka adduunyada ugu barwaaqada badan in dadkii Soomaaliyeed ay ku ooman yihiin kuna gaajaysan yihiin Ilaahay baa nagu cadaabi doona Soomaaliyay sharaftiina iyo karaamadiina u soo laabta Gooboyn waxay ahayd in adduunyadu ay u soo dalxiis tagto waxay ahayd inay Soomaaliyo dhan dhaljiso waxay ahayd inay ahaato sharafta iyo muuqaalka ummadda Soomaaliyeed meeshii dunida ugu barwaaqada badneed inay dadkeenu ku dhimanayaan miyaanay taariikhdaas mugdiga noo gelin buugta war dadka Soomaaliyeed oo hurdada ka kaca war ummadeena yaanan ku fiirsanin wax war Ilaahay baa dhulkana siiyay Soomaaliyay tusaale ka badan maanta oo aan idin keeni lahayn malaha badii iyo webigii baa halkaas ku daraya kalluunkii baa halkaa yaal biyihii meeshii laga soo saari lahay weeyaan beerihii meeshii laga qodi lahay weeyaan meeshani waa meeshii korontada laga soo saari lahaa markaasaa dadkeenni baaba'siiyeen qof walbo madaxa oo aan anigu ka mid ahay oo aan isku xishoonna qof walbo Soomaaliyeed oo dalka dibadiisa jooga oo dalkiisa ka hadla u sheeg dadkaada inay sidaas yihiin qof walbo Soomaaliyeed oo aan dalkiisa wax u tari karino fadlan dalkaada waxa ka sheegay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh